Somtel balshakori sida aad la socotaan maanta barnaamijka aan u taaganahay ee ah daryeelka bulshada waxaan rabaa inaan wax yar taariikhda barnaamijka dib ugu laabto barnaamijku sidii dadkii iga horeeyay ay sheegeen maaha markii ugu horeysay ee Somtel Puntland ay u qabato macaamiisheeda ku nool deegaanada Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya ilaa 2015 ilaa maantay barnaamijku waa isdaba socday maalinba wuxuu la soo baxay magac maalinba wuxuu imanayay adeegyo gaar ah waxa laga yaabaa waxa lagu bilaabay sida qasaalado talaagado baabuurta oo Real Grand oo waaga ahaa baabuurta ugu caansan ugu quruxda badan ugu xaragada badan dadkuna ay jecel yihiin wax badan oo la soo socday 16 17 18 intuu barnaamijku waa socday shirkadu waxay goosatay inay again macaamiisheeda barnaamijka dib ay ugu habayso oo ay ugu keento ayadoo ka faa'iideysanaysa laba qodob oo ay rabto inay bulshadeeda si toosan ula wadaagto oo ah shirkadda sida la socotaan markii hore waxay ahayd shirkad uu hal owner ama hal mulkiile uu iska leeyahay Sheikh Mohamed Saciid Ducaale khayr Allah siiyo baa shirkadda Somtel Puntland awal gooni u lahaa laakiin maantay 17kii bisha saddexaad waxa shirkadda loo furay sheerarkii inay dadku iibsadaan dad badan oo sheerlayaal oo halka fadhiya maanta hantiilayaasha shirkadda waa jiraan waxa jira dhammaan in 3 bilood 17kii bisha saddexaad laga bilaabo ilaa 3 bilood sheerarkii la furay sheerarkiina ay hadda socdaan waqti kooban oo 3 bilood laga yaabay 3 bilood ka hor inay soo gabagaboobaan oo soo gabagabay shirkadii oo furtay sheerkii ama saamiyadii oo bulshadeeda u furtay iyo qodobka labaad oo ah in dib loo celiyay ama dib loo casriyeeyay adeegii internetka oo ay shirkadu keentay fiber optic oo ah adeegyada ugu casrisan oo internet oo maanta dunida la keeno labada faa'iido oo bulshada loo keenay baa waxa lagu talagalay in markay bulshada dib wax loogu celiyo si markii ay macaamiisha adeegooda iyo isticmaalkuba u bato waa in macaamiisha dib loo taabtaa oo wax lagu ceshaa marka waxaan rabaa inaan wax yar ku noqdo taariikhda barnaamijka idinkoo raaliya barnaamijka markii la furayay waxa laga yaabaa inaanu nibi Somtel Puntland inay timi dalka oo ay ka jiraan shirkado gaar ah oo dadku aqoon in dadka wax lagu celiyo oo even shacabku ka niyad jabeen shirkadahan maaragtay xoog waaweyn even ma telecommunication kaliya shirkadaha xoog waaweyn macaamiisha inay ku khasban yihiin ana marka waxaan tusnay macaamiisha ama dadka reer Puntland ina anagu khasbanahay inay anaga yihiin dadka faa'iido dadka nasiina inay iyaga yihiin dadka mushaharkayga bixinay inay shacabka yihiin intaasaan tusnay dadkii baan fikirkooda ka ururinay barnaamijkaana ka soo baxay markii barnaamijka la bilaabay isweydiintii ugu horeysay oo waxayd war barnaamijkan si cadaalad u noqonaya ama dad gaar ah la siiya waxa la keenay system cadaaladda laga shaqeeyay system dadka ku shubtay ilaa xalay oo barnaamijku bilowday ilaa marka uu dhamaanayo dadka ku shubtay oo dhan baa meel la isugu geenayaa systemkaasi transparent ah iyadoo saab daytadii ku wada jirto baa waxa balay gareynaya qofka marka meesha joogo oo ugu mudan hadii maanta ay barnaamijkan u ahaan lahaa waxa laga yaabaa gudoomiyaha gobolka loo yeeri lahaa hadii xaflad ahaan lahayd waxa la lahaa adaa lagu wada kalsoon yahay madaxweynaha gobolka ah balay garey markuu click si oo balay gareeyo lambarka guuleystaha buu la soo baxaya systemku isaga isu diraya waxa laga yaabaa category-ga ugu fiican uu qaato waxa weeye مثلا ba hadii inteena hadda aynu ku ridno box hadaynu ku ridno qof kasta haduu mar ku rido qof inaga mid ah haduu 10 jeer boxka ku rido lambarkiisa dadka kale ay hal mar ku ridaan jaaniska ugu fiican waxa heli kara ninka 10 jeer ku riday jaaniska ugu fiican asaa heli kara marka barnaamijkan waxa weey waxaad nasiib heli kartaa inta jeer aad ku soo noqoto sida ugu soo noqnoqoto waa nasiibka waxa laga yaabaa in nasiibka uu ku siiyo adigoo one try isku day laakiin marka laga hadlayo probability ugu sareysa marka laga hadlayo probability ugu sareysa waa inta jeer aad ku shubato mana aha waxa hada 0.99 ku shubato oo $1 ku shubato
wax ku xadidaya maaha laguma leh halka adeega ku hay waligaana ku hayso laguma leh waxaan rabaa markay dadka markhaantiga ah oo reer Puntland oo barnaamijkan ku guuleystay markay yani marka barnaamijkan la fiiriyo waxa la soo maray sida aad ii sheegay gawaari waxa la soo maray laptop waxa la soo maray scholarship arday la siiyay waxaan anigu markhaanti ka ah ilaa 2015 ilaa maanta barnaamijkan la furayay waa daba taagnaa waxaan markhaanti ka ahay cidda barnaamijka ku guuleysata inay tahay cidda ugu mudan gaariga laptopka waxa laga yaabaa laptopada dadka ugu mudnaa oo ku guuleysta oo aan xasuusto waxa kamid ahaa arday jaamacadda sanadkii form 4 marayay agoon iyo rajo ahaa laptopna u baahnaa ba ilaahay siiyay gaari bacaadweyn cidda ka guuleysatay qof baa ku guuleystay baahidu u qaba ilaahay baa ogaa aqalladii arooska oo dhammaystiraa waxaan xasuustaa nin masaajid looga istaagay oo muadin masaajid ahaa oo masaajidka looga istaagay oo leeyahay warninkaas aynu gacan marino guri buu dhisanayaa subaxii ku xigay Somtel iyo magaaladii wadaadkaasi jooga aan sugayn waa la wacay waxa la waxaad ku guuleysatay aqal aroos oo dhammaystira marka barnaamijkan anaga aqliyan iyo maskaxiyan iyo dareen wuxuu yahay inaan dadkayaga macaamiisha wax ku soo celino sidaasaana ilaahay nooga dhaweeyay cid allaale cid u baahnayd buuna gaaraya insha Allah taala waxaan rabaa markay in yaani sida ogtihiin oo kaleeto adeegyadii shirkadu gabi ahaanba waxay isu bedeleen 2021 casri mar hadii fiber optic la helay qof dambe oo walwalaya ma jiro haday taa internet guri haday taa internetka caadiga iyadoo awalba shirkadu ay revolution ka la timi waxaan kaloo idin ballan qaadaynaa shirkadda isgaarsiinta Somtel Puntland inaan mar dambe wax telecommunication ama wax isgaarsiina oo ciriiri ah aysan dadka reer Puntland arkayn insha Allah taala wixii adduunka laga isticmaalo haday Paris tahay haday Riyadh tahay haday Dubai tahay boosaasan keenayna insha Allah taala iyo Puntland ba gudaha. Assalamu alaykum. Somtel.